nuba hadda qaynaa inta ka qayb qaadatay inay noo suurtoodo inaanu quruxda iyo jaamacadda iyo cilmiga kasbanno intiina nool iyo intiina shaqaynaysaa dadkii ku soo tabacay oo fara badan intii dhimatay Allah u naxariisto kuwa nool ka soo qayb qaatayna mahadnaqiya abaal baynu u haynaa waxay la tahay Saleebaan oo maanta yiri shaqada waan ka tagayaa waan gawaa waan daaray أنا وأكون حجابي دينته واحدة اللي جمعوا هنا لكن وحويدينا يا بروفيسور سليمان معلن كاجي بانول برينسبل كاجي يسكوا قري وعافبات قوي أول شقيه حجابي وحكسي كي هذه حاجات اللي ودي تشيلها حسن ما يجاكوا النوري لابد نادرة قري مد حمر بالجود لي مركي حمر ضدها قوية كانوا أبي مولته محمد يوسفوها نكى سواق بتاعي سجى شغله قري سجى أبي بالجود لي ترى وهاي بلودلي شاهد لماذا قاركين حسن ونادروها ولا أنا مثلك صار له ونوري معلم يتيس مركات دي هدي تذكي سووري نوري هاي حق ونود تشجع معي وكم باش كي برابه وحلكوا كوسو صعدا حسقوا دقاق ولا وحي جايا حلكوا يوسو صعدا نلا سوى يوم يا سويسا شلاي بايحي لا بقول ما أنا قارئ أفر كلاسهم من صدم قرش الأثيب الله عمود ما تنا الحمد لله أنت أصير كورونا لكات يا أدونك وحيلتها الدين معلن كيجي نوا كهذا نمت علمت قانا وكهذا واجبي نيرون اللي يروها شركتك السعودية أفتهمين هو هذا موضوع إيمان تعرف كان له هي أنت اللي جاي تذكيري هل كاي كقاضي ما كقاضي هل كاي دجاج بان دجاج وقدم بين مايو سفة عم بوشرح المانتا حفلة الوجود أنا جوا حيلا قد بون ناردين ورهوا وانقرق هذيك ورهوا وواحد سوي هذيك ورهوا تضوي الله تسنى كور هل كوا حلا وقفتي شروينا لا شركة بورمي أنتي نحقق كسوتشي ده وارد كمويه ما تقرأ كتابين سابرقة أو حلقة يابا إلى أن الدأ دين كل سنين بدل كلنا أيضا قارن قارنا أنا قرن كريم حال الصحيح إن بدل هركان شوفتنا أنا وير واحد أنتي نول ما تفكران فأنا ويرتاهي وكل هو واحترام قتني كروه بدو بيه قد ذا بوا عمود يورنا وكلا كم مقطع شركاس oo 5 bilood ku dhawaad fadhiyay waxay soo tiid Soomaaliland oo dhan shirkaasi waxa laga arrinsanayay xaaladii markaa joogtay Soomaaliya iyo Somaliland oo lixdankii midoobay oo dawladii ka duntay maxaynu yeelaa haddaynu Somaliland hay baan iga tashay waxa ka horeeyay daba socday shirk buuco oo go'aan lagu soo qaatay loo dhamaa waxa ka sii horreeyay mid berbera ah oo Somaliland soo timid oo dhibaato jirtay awgeed ergada qaar ku dhinteen dadka imanaya halkan waxay soo jibaaxayeen kuwa burca ka yimaada malaha ilaa 100 checkpoint oo ciidan degay kuwa hargeysa ka yimaadaana malaha sodomeeyo kuwa dila ka yimaadaana dhowr iyo 10 bay booramo soo socodeen checkpoints ka yaala ilaa xaaladaha أي هالكم وحلو في المدرير وحن أمرنا يا جامعة هاي يسكولوا إلى أن يستفي عنو دقين حولي هالكم كدعي وأنا يبغى يرد قد ركسرين مرخص بعض مرها وضيان ونكاح خيال موياه شركة تذكر بورم ولا يسكول هذا قاضي هوتيل هذا واحد شريه وقوله هوتيل كهذا هرو مال عوال بستان لي يرنا ولا غير الموهين يحاول الله سيحصل رع عوال اللي كجورة إرجع كبدان كنا يشبه قلوب والسومال خيار تدي سياسي بروفيسور سلطان كان عصاده شيخ دليارو دجاريهن كورنيل شانان شبهد يا سوقي بورما غلا وين مراهين غير به دمان قف ولا ريب وربي غورغيسي وحو قيبي لبا انو غلا ير مرتاسيو
maxay boorma culayska u qaadaysa maxay baa ku xukuntay waa ku xoog weyneyd maxay u qaatay danteeda ku jirtay mustaqbalkiina inaad jaamacada ka soo baxday bay saa awaartiin u qaateen waxay u soo qaateen in la helo xal marka hore nabad lagu helo iyo in la helo xal dadku ku wada dhaqmo oo Somaliland ay dhammaanteed ku wada dhaqanto oo ku wax ku wada qabsato halkaasina wuxuu noqday inay dawlad dhista Somaliland si ay uga baxdo dhibaatooyinka mustaqbalka u yeelato halkaa waxaa lagu qoray axad qarameedka horreeyay oo isku xidha dabarka isku xidhay Somaliland oo dhan oo markii dambana 2021kii ur bedelmay stoorka maanta aan isku xidhno oo taleedahay shirkaasi midhii u dhalay waxay noqotay nabad caama ha iska jiraan dhibaatooyin iyo dawlad Somaliland oo tii hore jirtay ee lagu dhisay burco oo markaa dhibaatooyin badan haysteen oo u jirtay awgeed in la jadiidiyo oo Somaliland intii ergaha isku raacday oo nin walba hebel idhaaba joogay bariga galbeed in la yiraahdo dawladda noocaasa oo saasa u sanad stoorkaale madaxweyne ku xigeen aqal kuurti aqal baarlamaan ayaynu dooranaynaa iyadoo shilin lahayn oo dawladda taageerin oo cid shirka malahan Talyaaniga waxoogaa lacag keenay cid kale xukuumada international bilood iyad ba isku tashanaysay qurba joogeeda tijaarta markii waxa waxay tijaarada ma jirin barigaas ayuun baa isu geysay dadku markay go'aan gaaraan ay aado ka talayaan ilaahay talada waafajiyo sidaas oo kale wax dhistaa dawladdaas ay dhisteen waxa horeysay tiibur cali u soo dhisay oo Cabdiraxmaan Axmed Cali hay oo dhibaatooyin badan oo kulmeen duruufii jiray awgeed tii halkan ka sugaysana waxa loo dhiibay cigaal iyo Cabdiraxmaan Cali meel wacan bay wax geeyeen hay-adii bay noo dhiseen nabadii bay ilaa heer wax ka qabteen hay-adii dawlad bay abuureen ciidamadii baa la mideeyey dhulkii la baneeyey meenadii baa la hal guro qaar loo doontay waxay soo gaarsiiyeen meel dastuurkiina jira axsaab in la furana la hawaysto gobolladuna wada dhisan yihiin tii riyaal iyo Axmed Yuusuf ma ka dambeysay iyadoo markaa jaamacadu bilow yihiin aynu soo galayna reerkaygu wax dhaahdaan marka abaartu ku jirta ee sahanku u raadiyo wuxuu dhahdaa ortiya saxadina qayb soo galay iyadoo markaa dawladdu soo bilaabayso ayaa riyaaliya Axmed ku soo baxsatay oo loo filayo inay laba nin oo waliba waayarnimo dawladda yihiin ilaahay inuu ku gargaaray caloodayna way keeneenoo ilaa doorashooyin dimuqraadiya oo adduunka way naga yaabo oo cod iyo mida ayayna gaarsiiyeen iyaguna ilaa ridoodu ka soo qaadeen inta nin walaal xir soo qabtayba saddex hal baa u haystay udurixaadka saddex hal baan ka leexan karay marka diinta islaamka la kale isaga ilaahay waxa ka dhacay koow inuu Soomaaliland isku hayo dadka Soomaaliyeed duruufaha soo maray ee kala caqliga ee kala qolada ee kala danta ee kala aragtida bari iyo galbeed iyo koonfur iyo bad iyo bari iyo buur waxa jooga iyo nin waloo caqli laba ka aqoonta inaad isku hayso oo dhib badan qofna qoyska ka fikir aftaada carruur kala dalacadaas aad u haysaa afartaad marketing ka waran waxaan isku haysaa Soomaaliland duruufteeda nin walba taasoo dusha u saaran yaa kale dusha u saaran taariikhtaasi dadka la ilaa ahlul hil wal aql diintu qodadu ay dhahdaan koow yaa ka culimada laba yaa ka dadkii ummaddu leeysteen madax dhaqameedka saddex yaa ka aqoon-yahanka tacliinta bartay ee koow ka tii ku inaa qoladina maanta joogto ayuu xilkaasi la saaray madaxda qaranka waayo qofka waxa loo yidhi xilkaas baa tahay aqoon-yahan baa tahay certificate baa lagu ictiraafay waxa weeye aqoon qaranka oo dhan baad gaadhay waad ka gudubtay tii qoyska waad ka gudubtay tii gobolka waad ka gudubtay qofnimada sultaan baa lagaa dhigay caaqil baa lagaa dhigay ummad baa ku daba joogsatay xil baad qaaday kuwaagan iyo kuwa kale ay dan ka dhaxaysaba inaad si wada hayso oo aanad kala jarin laakiin haddaad tiraahdo anagoo reer hebel taasaa dhacaysa dee xilkii madaxweyne qarankiisa kuma haysid ilmahaaga yar dhirbaaxa iyo dagaal kuma korortid haddaydan caqliga ka heshin markaa hogaamiyena noqon maysid sheekh ummadda wadana noqon maysid xil la qaadi maysid madaxweyne ilaa aabba ama waalid
haddaanad diyaar u ahayn inaad qofka kaa soo horjeeda maskaxdiisa qanciso tii riyaale tii axmed siile ayaa ku xigtay halkii waddadii iyuun bay haysay soomaalida ictiraafka loo raadiyo mashruucyo ha loo dhiso dhaqaalo kor ha loo qaado waayo xil waxa weeye nabadii baa soo koraysay aqoontii baa soo koraysay markaa dowladuna waxay u bilaabantay inay u shaqayso adeegii bulshada markaa ay heleesho kolba tallaaba la qaaday ninkii iminka halkan ka hadlayay macallinka wuxuu yidhi cilmiga kolba mid baa dhinta kolba mid baa la soo qaadaa priority-ga mudnaanta qarankana kolba mid baa hadhayso mid baa la soo qaadanaya marka halkaa waxaa ka maqan markaa usilaaya bilaabi nabadii baa sii adkaysatay aqoontii baa korodhay muruqya yartay Soomaaliland ay cadawgeeda iska ilaaliso oo ilaalin karto gudaheed dibadba dabeetana waxa la bilaabay horumarintii yaana waan ugu nasiib badnaaday intaasoo nabadii iyo horumar gaadhaan soo gaaray halkii baan ka qabtay waxaan ku daray in la helo dowlad wanaag oo dowladda la cuno haddii kale waa jabaysaa waa in la cunaa dowladda gudaheeda haddaa dowladda dhisto iyada la hagaajin waana mid hawl badan adigaa naftaada qoyska markaa tahay mar walba laba shakhsi baa tahay mar aabbaha baad u cadhoonaysaa intu ku canaanto markii yaraba cadhoon odayga waa cadhoonaya haddana waa qoyskii haddana waad haysaa qarankiina waa inaad taasaysaa wixii ka dhexeeyana markaa waa inaad ku ilaalisaa sida ugu dhow cadaalad ilaahun baa gaara laakiin inaad ku dadaasho dadka la baro inay wax wada leeyihiin oo mid yihiin oo isba yihiin qaranka ay wada qaataan halkaasaynu maanta maraynaa ilaahayna wuu ina waafajiyey in badan aynu qaadno in badan way dhimantay inta dhimanna waxaan idiin sheegayaa dadkay sugaysaa waa idinka halkan ay ahayd shalay bay ahayd maxamed xaajiraan cigaalo prime minister oo xamarkeyd baa noogu yimid librariga Yurub halkiisa subay salabaan waa joogay wuxuu noo akhriyay baritaan noqonaysaa madaxda dalka riya nala ahayd ogar iyo nooleeya gaariga maanta anaga adikeeda leh ogaada baritaa gaaraysaa xilka u diyaar garooba waxaan isku tashanay dhibaatada dadka la iska fahmi waayo mar ma la dhamayn karo waa bilow dowlad wanaag walaaltinimo qaranka wada ilaashado dowladda wada ilaaliya meel wacan bay inoo maraysaa oo ilaahay mahadiyahay ilaahay inuu nagu gargaaray go'aankii aynu burciyo ku qaadanay booramana maanta halkaasuu marayaa waxaana ka markhaatiya xaaladda maanta adduunka ka jirta ee geeska afrika ka jirta iyo Soomaaliland say tahay ayaa ka markhaatiya go'aanadii bariga odayaasheena qaateen iyo dadkii joogay idinkuna ka aqbasheen dhalinyaraday inuu sax ahaa oo inuu mahadinay oo inuu meel wacan marayno xafladda maanta iyo Soomaaliland maanta geeska afrika waxa ka dhacaya ka joogto ayaa markhaati ka ilaahay baana ku mahadnaq maanta isu sheegi meena waxa geeska afrika dhacaya dad Soomaali baan isku xigno waa Soomaali walaalna wanaagooda inuu jecelahay dhibaatada gaadha waa dhibaato walaalka gaadhay tii horena waynu wax xunahay inagoo ritaalhayn oo dhaqaaleena aan cidina ictiraafin oo dowladda lacagna siinin oo inaan waxba lahayn markastoo ay ku timaado masiibada dabiiciis Soomaaliya dadkii jawhardhe kii bardweyne dheh mar walba mucaawino oo iska gooynaa inagoo eegayna waxaynu sunahay Soomaali meel joogtaba meel walba diyaar baan inuu ku caawino waxaanu taakayno laakiin waxaanu leenahay talada wala kaleey Soomaaliya tana dhisantay haddaad adigu tan nala dhisi lahayd oo tan ku dadaal lahayd inay wanaagsanaato qaska ka dayn lahayd adigana waxay ku tar lahayd anaguna intan ka badan qaadi lahayd maanta dagaalada geeska afrika ka socda ee jaararkeena ka socda ee ololaayay Soomaaliland nabad buuxda ay ku joogtaa ilaahay waa mahadale laba shicibka intiisa badan baale nabadda oo iyaguna ilaashaday waxa koreen u mahadnaqaynaa dadka naftooda u horay ee maalin walba u dhinta ee xabad ugu dhacdo isagoo nabadda ilaalinaya qaarad ila qaarad ee wada garanaysan ee qoysaskuna ka mid ahaayeen iyagoo nabadda ilaalin lagu laayay ciidamadu dadka waxay dheer yihiin adigu aqoon baad ku caawinaysaa talaad bixinaysaa saayala aqoonyahano odaygu taluu bixinaya baacimtarka shirkadaheena allaha barkeeye marka la adkaado loo carara lacag bay bixinayaan laakiin nan naftiisa huraaya oo inaydan maanta idinku dhiman askariga halka jooga wuxuu diyaar u yahay haday balaad dhacday xabad soo dhacdo inay nabad gallo isagu xabadda si dhigo ilaahay baa lagu mahadiyaa in la helo caynkaas oo Soomaaliland ilaaliya dhammaanteen inuu heerka gaadhnaa baan doonayaa oo nu saas oo jeclaana hadii Allah ilaahdo
عمود محاك الربا ما أنت إنما ذاك بحية هبلاك بحية عمود لو بحر اسمه هلبيس وجامعة قرن كوريس وجامعة أوركس Soomaali afko inta ku hadashay Soomaaliland oo dhan ba soo marto nin walba faanayo ka dhig waxaan doonayaa waxay joogtaa hoygii lagu qabtay shirkii Boorame waxay joogtaa magaaladii lagu sameeyay calanka Soomaaliland midabkiisa waxa ka baxaysaa halkii lagu sameeyay heesta qaranka Soomaaliland waxaan ka doonayaa oo Soomaaliland ka sugaysaa jaamiciyiinta reer Boorame iyo dhalinyarada Boorame iyo odayaashooda iyo waayirkoodaba inay qaadaan qaranimada Soomaaliland caalankeeda sharafteeda horumarkeeda iyo taladeeda inaad horumar ka noqotaan baan doonayaa anaan ku faano waa jaamacadayda waxaanu ku soo gabagabeynayaa halkan maanta Soomaaliland waxay baahan tahay in aqoon lagu maamulo nabadii odayga caaqilka hayay ee labada qabiil ee geedka ahayd waa la dhaafay nabadda maanta Boorame meel ka xumaatay meel ka xumaatay dalka kamid ah waxa ku jira Ruushka Mareykan iyo cid kasta iyo dawlad kasta iyo khaliijka oo ku jira magaalo kasta oo dalka adduunka jirta maanta haday waxay dhacaan gacmo badan baa soo gala dadaan aqoon lahayn oo waxa gareyn kama dabaalan karo waxaan doonayaa jaamacadaha iyo ardayda inay koow ka noqdaan nabadda qaranka ee ilaaliyaan maadaama adduunka uu noqday meel la soo gaaro oo la wada hadlayo dad aqoon baa nabadda hayn kara oo garanaya dalkooda waxa ku soo socday wuxuu yahay koow waxa la inuu dhaqana xoolo si loo dhaqayo waxay u baahan yihiin cilmi haddaan si cilmi loo dhaqay si waalidkeedu dhaqmayay ma soconayso roobkii wuu yaraaday abaartii way badatay haddaynaan fikirin ilaahay bini aadam idinka dhigay waqad karramnaa bani aadama khaliifatan fil ardi kuwa aqoonta laanay fuulaysaa wali waajibaase idinka la hadlaya ayay kow ka tahay abaarta inaad ka hortagtaan baa la rabaa oo aynu u raadinaa sidee dalku biyo u helaa beeriyo xoolo ugu noolaadaan ama dadku wacdo magaalooyinkooda way haraadan yihiin Boorame way haraadantay maalin saddex aftirood ceel baynu qadaa ugu qura caqli ma aha aqoon baa la rabaa yaa research sameynaya yaa hawshay soo jircinaya markuu aqoonyahanku soo shiilo talada abaal baa lagu qabo dalka taas lagu wada aqoonyahanku waa inuu ka baxaa foorarka hoose waan ogahay maanta intiina war qabta muxuu naga hadlayaa madaxweynuhu maanaga xagga shaqo tagto aan leenahay inaad shaqay abuurtaan rabaa inaad biyaysan baan rabaa inaad xoolaha dhaqdaan baan rabaa inaad dalka baacmister iyo xisaabaad furtaan baan rabaa isaas la keenay inta ka horeysaba inta anaga bay keentay kaasa maanta dadaalka uu yahay nabad baynu joognaa dababada bahreer ka baxaya waxaanu qaadanay haddaan dawladnahay go'aana waxa ka soo ceeray inaan dhex ka noqon dhex عرب إثيوبيا الدولة كويسة إريتريا أنا وحنا الصوماليات نقول بقى عنا بدل بانو هنا نبض يا إسكاش ننا أنا قلت لك كل وصل عنه ننا دجال نقول قصب ما يرمينا بروكس وور يا دجال يسوع ذيك هروي نودي له واتي أكوا بدت هوري وإلى هذا الصوماليات دوني أحمر سبد وين نبض كسرعتها أقوام كله ترى لسه حدها هي بدت تسوي دبارة رسول تاساي نوبلنا تاسل كله تركينا markhaatiga ugu dambeeya waxa weeye Soomaaliland maanta xaalka maraysa nabadda iyadoo waxaas dhacayaan ayay Soomaaliland qabsatay doorasho kuwii doorashada ina baray ee Mareykan iyo Ingiriisiga ay nagu majirteen inagu bogaadeen cadaaladda nabadda iyo aqoonta ku dhacday waa waxa lagu mahadiyaa shicibkan uga mahadnaqaya xisbiyadan uga mahadnaqaya guddiga ka shaqeysan uga mahadnaqaya iyo cid kasta oo wax lagu tartay waxa Ilaahay mahadiya إن الله عقدها كوب حدا فربضان أو إن لا يريا تاي خرج كاس وآد نقول بدنا عليسها إن بقول كي بس شاب بقول كي ولا بيس ديتن أي Somaliland بحسي ويا هاي عاشور تتكلم قاضي ولوك هيدي إن النسات هذا بنسوي تشنوي محير ما تقول بنشوفه دولتي معارضة محافظ مكانه معارض كقيبه هي أقل كي برلمان كوهيا مهردي قاربه هي دولتي تكره هيسا محيرنا هاي نوع معارض دولة شقير سن أو شقير سن لقيه ما قدومي أنا معارض بان هو أنا دولة كسور جسرية قارك قيبة كايسة والله تصور مهر كسور بحزب كره قارك كيف قيب كسور كش حزب وقت كتير
isku xil baynu nahay sharciga dastuurkiiyo qarankaas ku dhaqmaysaa maxaynu yeelay talo wadaag mucaarad iyo muxaafida waataynu ku nabadgelinaa haddaynu saa kuwa dambana u qabanano waxay isula ogolaana haddii alla idhahdo idinkaa lidinka soo ayaa daayartiinan inaad waddadaa martaan oo idaan igaga noqon intii qoqoqubka ahayd aynu soo garayno inta soo farnay baan ku dheereeyey aad iyo aad baa mahadsantihiin hambaliyo ifi aakhira wana wala samaradiin rajeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu